28 bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay booliiska dalka Kenya waxay bartooda Twitter-ka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun uu Kenya soo galay 24 Sebtembar waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliiska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliiska la soo xiriiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab madaxna uu ahaa amniyaadka magaalada Muqdisho waxay sidoo kale booliiska Kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaas oo su'aalo lagu weydiiyey haddaba Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi ama Ciise Tarabuun waa nin caynkee ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyaadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xagjirka ah waa mawduuc aynu ku lafagurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwo hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010 waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afhayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariyay waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka howlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kaasaba Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka dabayaaqadii bishii Juun 2013 waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada Barawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab sarkaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys sarkaalkaasi ka tirsan dawladda waxa kale oo uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dawladda Soomaaliya balse uu u tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeenu ay ku daba joogeen nin la yidhaahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eeriyaas ka dagaalama oo xamarna ku soo gala ku dhifoo ka dhaqa madax u ahaa waxay ahayd 8 bishii 3 2015 telefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan telefoonkii la daba joogay waxaa qabtay nin la yiraahdo Ciise Khaliif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay dowladda sida lagu geliyay anagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonku intuu dhacayo in la daba galo oo la raaco signalka telefoonka la raaco sidaas meeshii markii la tegey waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore uu ka baxay waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yiraahdo isugu ay sheegay Ciise Khaliif Cabdi waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga 4 qof laga soo qabtay marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen isku hal qof ay noqdeen wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi annaga marka baaritaanki waxaa ka soo baxay ninkan wuxuu noo qastay markii dadka la baarayay wuxuu noo qastay ninkan oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista ah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam ka tirsanaa jiray kadibna uu noqday waliba qiraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaaday ayuu ka qastay wuxuu qastay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa kadib Al-Shabaab ku biiray qaybta jabhadaha ku biiray kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay wuxuu noo sheegtay markaas Ciise Khaliif Cabdi la yiraahdo kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynay dadkii yaqiinay waxaan soo ogaanay in la yiraahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi markii aan dhahnay soo magaca laguma yiraahdo wuxuu yiri magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la igu yeeraa halkaas waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaan magacyo kala yeelan karo waxaan weydiinay kale magacyo kale ma jiro oo lagu yaqaan wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi loo yaqaan marka Ciise iyo Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab inta lagu sheegay marka magacyada loogu hormaro aniga waxaan ogaa marka ninka asigoo xiran oo dadku marka la soo xiro maxaabiista
laga heli kara in laga helo ugu dambeynna maxkamad la geeyo qayb ku xigta oo ah qayb tuhmo weyn ku jirto laakiin aan caddayn loo haynin aad oo maxkamad lagu gey karo oo baaritaan dheeriya u baahan iyo qayb kale oo cagaal ah oo ah qaybta oo aad u jilicsan oo tuhmooyinka yaryarkaa ah oo cabbaan haddii lahaayo oo wax lagu waayo damaanad lagu daayo waa gar isaga qaybtuu ku jiray marka wuxuu ku jiray qaybta ugu sarraysa ayuu ku jiray oo gaduudka ah oo dadka aad khatarta u ah 19 Sebtembar 2016 Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga inkastoo dawladdu ay sii daysay haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqayna la yeesho laamaha amniga taasi oo mar labaad ka dhigtay nin u bartilmaameedsan laamaha amniga dawladda 19 Juun 2017 ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sida waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun waa alla mahadi Allah ugu mahadcelinayna marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiro waa ninkii kaliya dhihi jiro qof hadii la dilay ama fasaxa ugu dambeeyay dili jiro marka waan ku faraxsanahay ciidamada waa ugu hambalyeena arrintaas Abdullahi Maxamed Cali Sanbaloshe waxa uu horay laba jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qabashadaas waxay ku sameeyay howlgal qorsheysan oo isaga lagu daba joogay wasida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay ayuu ku jiray wada hadal ayaa lala galay waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisada al-shabaab gudaheeda ballantii uu ka baxay wixii laysku ogaadhin uu ka baxay waa lasoo tababaray howlgal cusub ayaa loo soo diray tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaaladii kalkalyaan madax u ahaa waa la ogaaday makaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii Juun 2017 way marka xogtaasi waa xogta ay haysay dawladda Soomaaliya hay'adda nabad sugidda dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorsheysan mid iska dhacay ma ahayn way markii la soo qabtay wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yiri waxa soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir xilkaas miyuu lahaa mise xilkaasi waa mid ay dawladdu dhabarka u saartay ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgalada ugu waaweyn ka fuliya laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto laakiin kuwooda ugu qasabta badan ee howlgalada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ma aaminsanin si markii aan baarnay inuu overall uu leadershipka amniyaadka magaalada Muqdisho mas'uulka ahaa mid ka mid ah saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyay inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka al-shabaab sidoo kale waxa uu beeniyay in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay'adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi isla markaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa barnaamijka dalka baarista waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka al-shabaab asagoo aroos ah oo faadsanaya markaa la aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay markii aan asaga weydiinay sababihii ku kalsana waxaa la yiri ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuura ku raraynaa waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabad sugidda baabuura ku raraynaa in qofka la yiraahdo wasiirka aqoon uma uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday ninkaana maxkamad buu maray maxkamadii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u caddayn u keensada waa la waayey hase yeeshee saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay galka baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12 bishii Febraayo 2018 3 maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukunkaasi oo ahaa 2 sano
kaasi oo uga bilaabanayay markii la qabtay 19 Juun 2017 waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga isla markaana uu ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab hay'adda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu al-shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimid wax u keensaday caddayn iyo eedayn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey goormuu ku biiray isaga al-shabaab al-shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan al-shabaab ma uusan noqonin hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqabno al-shabaab annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa xisbul islaam kabacdina isagoo xisbul islaam ka tirsan ay shabaab midoobeen shabaab uu ku biiray goormuu ka soo baxay annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aad hadda haydo annagu ma hayno annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan al-shabaab marna uusan kamidna uusanna ahayn waxa weeye lagana been sheegay hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uu la socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu galka baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ururka al-shabaab gaar ahaan dhinaca jabhadaha kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016 Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa la sheegay inuu xabsiga dhamaystay 18 bishii Maars 2019 xabsigan ay Soomaalintaasi laga sii daayay waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay'adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa su'aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah maxaa caddayn ah ee hay'adaha dawladdu ay u hayaan in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu yahay Ciise Tarabuun maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero waa kan nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali magacaas ah Ciise Tarabuun ma ahan magac jiro mana la yiraahdo wiilka hadda sawirkiisa la soo saaray warbaahinta la soo saaray Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi la yiraahdaa laba yiraahdo Ciise Tarabuun marka xagee buu ka yimid magaca Ciise Tarabuun magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay'adda nabad sugidda ayagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay Ciise Tarabuun lama yiraahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi la yiraahdaa wiilkaas baynaadkiisana waa sima jira isagu ma isku yaqaanaa Ciise Tarabuun iskuma yaqaano mana la yiraahdo iskumana yaqaano magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeedna maqlin dhinaca kalena bishii Sebtembar 2018 afyeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayay nin ka tirsanaa ururka al-shabaab oo ay dileen laamaha amnigu kasoo dilka ninkaasi waxa afyeenka booliisku uu sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun halka ay ku dileen ninkaas waxa la yiraahdaa al-shabaab Abukar Xasan Xade ayaa la yiraahdaa wuxuuna amniyaadka ku hawlgeli jiray oo al-shabaabka ugu shaqayn jiray magaca la yiraahdo Sayid Abukar waxaa la shaqaynayay oo ninkaas la shaqayn jiray oo ayaguna amiir ahaa oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqayn jiray oo halbowlaha u ahaa asaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen taliyii hore nabad sugidda Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryar waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyay hay'adda nabad sugidda waayo marka su'aasha la isweydiinay waxa weeyaan idinku xilliga aad qabateen maxaad ku cadayseen oo aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay shabaab ka tirsanaa iyo xisbul islaam maxaa lagu cadeeyay waxaa lagu cadeeyay horta 3 shay qodobka koowaad qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahayo targetka ahaa gurigii uu ka tiraba laga soo helay telefonkii lagu yaqiinay ninka dhaqta ayuu ahaa wuuna sheegay telefonkan waa soo qabtay wuxuu ku jiray bayrol dad oo la raadinayo dabcan hay'adaha amniga liisa u qoran waxaa u qoran liis weliba magaca liiskiias ugu qofnaa iyo magacuu sheegta waa kala duunayay magaca liiska ugu qofnaa wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi u qofeen marka Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab marna uguma qofnayn markii deegaanka la soo qabtay kul waxa la ogaaday in uu gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay telefonkii ninka uu qabtay markii dib loo raasana magacyadii ku jiray liiska wantedka magacii u dhawaa oo laga helay uu ahaa Cabdi tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Cabdiwaaxidna waa isyeeshay markaas ayaa lagu ogaaday lagu cadeeyay inuu yahay marka Cabdi Khaliif Cabdi
cabdiwaaxid khaliif cabdi, cabdiwahaab khaliif cabdi, ciise khaliif cabdi, ciise tarabuun waa isku hadlin. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in cabdiwaaxid khaliif cabdi markii uu ka baxayay magaalada muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba, isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo, ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade. waxaa kaloo ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998, taasi oo da'diisa ka dhigaysa 21 sano. dowladda Soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu dhamaystay xukunkii ay ku xukumeen hay'adaha garsoorka, isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed. ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen cabdiwaaxid khaliif cabdi. eheladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo. hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen. waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu cabdiwaaxid khaliif cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya, balse ka tirsan geeska Afrika. si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed. galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska cabdiwaaxid khaliif cabdi, hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin.